shirweynaha wada tashiga beesha xawaadle war murtiyeed 13 Febraayo 2020 oo ka soo baxay Muqdisho Soomaaliya shirweynaha wada tashiga beelweynta xawaadle oo socday muddadii u dhaxaysay 12 iyo 13 Febraayo 2020 laguna qabtay hotel Giajo ee magaalada Muqdisho ayaa waxa isugu yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre xildhibaanada labada aqal ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle siyaasiyiin aqoon-yahano mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha kala duwan ee dowladda saraakiisha sare ee ciidamada qalabka sida ganacsato odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kale ee bulshadeynta xawaadle ujeedada shirweynahan ayaa ahaa inay beeshu ka tashato aayaheeda iyo mustaqbalkeeda siyaasadeed iyo kan horumarineed ee kaga aadan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaa shirka lagu daafuray aayadaha Quraanka Kariimka waxaana si wada jir ah loo wada ansixiyay qodobada shirweynaha kuwaas oo kala ah xuquuqda beelweynta xawaadle uga maqan dowladda federaalka Soomaaliya doorka beesha ee kaga aadan dowlad goboleedka Hirshabelle dhismaha dowladaha hoose fatahaadda beledweyne iyo webiga Shabeelle dhamaystirka garoonka diyaaradaha ee beledweyne iyo kuwa kale falanqeyn iyo dood dheer kadib beelweynta xawaadle waxay isku raacday arrimahan xuquuqda beesha uga maqan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay beeshu si weyn uga dooday xuquuqda kaga maqan dowladda federaalka Soomaaliya iyo in aanay ku lahayn matalaad u dhigan muddo iyo miisaanka beesha sidaa darteed waxay isku raacday in wasiirka iyo xubnaha labada aqal ee dowladda ku matala beesha ay u istaagaan kana shaqeeyaan sidii ay beeshu u heli lahayd xuquuqda ay ku leedahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir siyaasadda beesha ee kaga aadan Hirshabelle bilowgii hore ee dhismaha dowlad goboleedka Hirshabelle oo aanay beeshu si mugla uga qayb gelin tirada dadkii wax u doontayna qiyaas ahaan ahaayeen aysan ka badnayn 10% waxaa la istusay in beeshu tashato kana qaadato go'aan iyo aragti midaysan oo ku aadan dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoo wada tashi dheer kadib ay isku raacday sida soo socota inay wada hadal cusub la yeelato beelaha Hirshabelle ee kala dhaxeeya wax wada qabsiga oo ay ugu horeeyaan kuwa la dega Hiiraan iyo Shabeellada dhexe si loo helo Hirshabelle oo caafimaad qabta loona wada dhan yahay inay beeshu si buuxda uga hesho xuquuqda kaga maqan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dhammaan gobolada kale oo ay beeshu degto dhismaha dowladaha hoose waxa uu udub dhaxaad u ah horumarka bulshada si taal loo xaqiijiyo loona taabageliyo golaha deegaanka waxay beeshu soo jeedinaysaa in la dardar geliyo dhismaha golaha deegaanka ee degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle in la ilaaliyo midnimada iyo walaaltinimada ka dhaxaysa bulshada wada degta Hirshabelle horumarinta deegaanada Hirshabelle dhibaatooyinka ka jira deegaanada Hirshabelle sida fatahaadda webiga Shabeelle dhamaystir la'aanta gegida caalamiga beledweyne ugaas Khaliif iyo garoomada kale ee gobolka sida Tambuulo Burte dhismaha iyo dayactirka wadooyinka Hirshabelle gaar ahaan kuwa magaalada beledweyne ayay beeshu ka dooday sidii xal loogu heli lahaa waxa ay beeshu si isdul taagtay sababaha keenay in wax laga qaban waayo fatahaadda soo noqnoqotay ee webiga Shabeelle oo la og yahay ama la fili karo inuu fataho sanad walba qasaaraha uu geystana 30 sano ee la soo dhaafay ay soo tareysay iyadoo la og yahay in dhaqaale deeq bixiyayaasha caalamka ka imaanayay kuna imaanayay in fatahaadda wax looga qabto
soona gaaraya dowladda federaalka aan laga siin qaybtii ay mudnaanta gaarka kaga lahaayeen qaranka Soomaaliyeed si wax looga qabto arrimaha fatahaadaha kor u kaca saameynayana sanadihii ugu dambeeyay ee la soo dhaafay waxay beelweynta xawaale soo jeedinaysaa talooyin dhaxalgala oo noqon kara wax ka qabashada fatahaadda sida inay beeshu kala xisaabtanto deeqahaas xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo u mareysa dowlad goboleedka Hirshabeelle si deeqahaas loogu soo celiyo wax qabashadii howlihii loogu talagalay sida fatahaadii dhameystirka garoonka Beledweyne beeshu waxa ay aad uga xun tahay xirnaanshihii garoonka diyaaradda Beledweyne ugaas Khaliif kaasoo xirnaa xilliyadii fatahaadaha roobab xooggan daraadood halkaas oo ahayd meesha kaliya ee gurmadka uga imaan lahaa dadkii ay fatahaadu saameysay in la dejiyo qorsho lagu mideynayo dhaqaalaha regional contribution plan ee loogu talagalay arrimaha fatahaadaha iyo dhameystirka garoonka diyaaradaha ayna ka wada shaqeynayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle deeq bixiyayaasha ganacsatada iyo qurba joogta Hirshabeelle waxay beeshu u mahad celinaysaa dhammaan inta ka qayb qaadatay gurmadkii fatahaadda ee magaalada Beledweyne sida ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto iyo beesha caalamka arrimaha amniga waxaan qirsanahay in caqabado badan uu ka jiro dhanka amniga guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan qaybo kamid ah deegaanada Hirshabeelle iyadoo ay sanooyin badan go'doonsan yihiin sidaa darteed waxay beeshu soo jeedinaysaa in dib u xoreen dhab laga sameeyo guud ahaan deegaanada gobolka in dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle sida ugu dhaqsaha badan isaga kaashadaan dib u xoreynta degmooyinka Hirshabeelle ee go'doonsan ugu dambeyntii waxay beeshu isku raacday in 15 Maarso waa bil kadib ee 2020 shirka wajigiisa labaad uu ka dhaco magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan intaas uu nooga egyahay